agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Ibraahim Aadan ayaa saaka daahfuray kulan tababar ah oo looga hadlayo dhiirigelinta maalgashiga kaas oo ay soo qaban qaabisay hay'adda lagu magacaabo IFC oo ka tirsan Banka Adduunka. Kulankan oo ka qabsoomay magaalada Addis Ababa ayaa socon doona muddo 3 cisho ah, waxaana ka wada qaybgalaya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya iyada oo diiradda lagu saarayo sida loo horumarinayo dhinacyada kala duwan ee maalgashiga. Agaasimaha ayaa safarkiisa shaqo waxa ku weelinaya madax ka tirsan wasaaradda kuwaas oo halkaasi u jooga sidii kor loogu qaadi lahaa dadaalka wasaaradda ee ku aadan in dalka loo soo jiido maalgashadayaal caalami ah iyo kuwa dalka gudihiisa